السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلة iyo channelkeeni ahaa tusinta garaadka iyo barashada xikmadda iyo walaashini ismahan Khaliif Cali oo markale idiin sidaa wax tayo leh oo qalbada u roon wax tayo leh oo qalbada u roon oo bulshada wax ka bedeli karta oo horumar lagu gaari karo ma sha Allah. ballanteennuna waa wanaag iyo xumaanta oo la reebaa. mar kale idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada walaashiin ismahan Khaliif. waxaan idin leedahay maadaama channelkan cusub yahay waa inaad dhahdo subscribe beelkana taabataa. waxaana kaa dalbanayaa inaad la wadaagto walaalaha muslimiinta gaar ahaan Soomaalida iyo waxaan kaloo kaa dalbanayaa inaad share dhahdaa like na saartaa. kusoo dhawow mar kale channelkeena ka socdo qeyrka ee tusinta garaadka iyo barashada xikmadda. maadaama bulshadeena Soomaaliyeed duntay waxaan ku socday cashirkeeni ahaa daryeelka qoyska. marka qoys la daryeelaa ayaa bulshada daryeel heshaa ayaa horumar la gaaraa. maasha Allah. daryeelka qoyska maanta waxaan kusoo qaadanayaa hadduu Ilaahay idin ruuyo waxaan kusoo qaadanayaa daryeelka qoyska furiinka. maasha Allah. daryeelka qoyska qaybtiisaan waxa waaye furiinka, in gabadha muslimada oo Soomaalida ee furiinka u fududahay. maasha Allah. Ilaahay hana soo hadeeyo gabdhaha Soomaaliyeed ifur inay joojiyaan. maasha Allah. ilaaha uga rajeynaa inuu Soomaali dhaxal ay nagu noqotay meelay ka timaada ma aqaano. maasha Allah. ani hadda maasha Allah qurbahan wax badan aan ku noolahay. dad fara badan dhaqamo fara badan ayaa arkay oo dad badan oo muslimiin oo adduunka ka kala yimaado. dadkan reer galbeedka cadaanka arkay. maasha Allah. marka qof oo dumar oo ninkeeda ifur dhehayso wax yar aan micno lahayn ama wax weynba si sahal ku dalbanayso ilaa Soomaali aan ka ahayn ma jirto. marka maanta waxaan ku soconaynaa daryeelka qoyska. daladeeni xarig ka mid xubin ka mid oo loogu magac daray furiinka. qoyska si uu furiin uga dhicin waa inaad ka badbaadisaa furiinkana badanaa maasha Allah ragga Ilaahay ayaa mas'uulka saaray. ragga siiba gaar ahaan ragga Soomaalida maasha Allah waa rag fiican. Ilaahay ha u ziyaadiyo. way dhacday qaladyadan waxaan maaragtay meelay kasoo bilaabatay waana laga jiseenaa. marka wixii inaan ka baxno waa dhibka dhacay. see looga baxaa? dhibaa dhacay. aday markuu dhib dhaco muxuu u dhacay ma leedahay mise see looga baxaa? horta wixii guri dumay wuu dumay, laakiin guryaha kaloo dumi doono ama jidku kusoo jiro see ku badbaadinaya maanta ka hadlaynaa. oo furiinka dadka see looga hortagaa. walaasha ismahan Khaliif Cali qalbi u roon oo si qalbi oo daacad kula hadlayso walaasheed Soomaaliyeed waxay leedahay abbaayo ha ka dalban ninkaaga furin. abbaayo ha dhihin ninkaaga ifur. abbaayo weligaa ha dalban furin. abbaayo ku dadaal dhismaha qoyskaaga. abbaayo ninkaaga wax kuu dhaama ma helaysid ayaan ku leeyahay. abbaayo gacaliso fiicanee furiinka in la yareeyaa. haddee duruufo waaweyn dhacaan oo ay dhacdo ninkii inaa aad u kala fog tihiin ama adiga u guuri karin ama isaga soo guuri karin aad dareemaysa inaa weligaaga is arkaynin ama dhibaatooyin waaweyn dhaco waa gaar. laakiin reerkii ninkii guriga kula joogo inaa guriga ka saartay hadda ifur dhahdid ya baa wax wanaagsan ma aha. furiinka ma wanaagsano. ilaahay wuu necab yahay guri dumaa. ilaahay wuu jecel yahay guri dhismaa. ilaahay wuu jecel yahay qoyska dhismaa. ilaahay wuu necab yahay qoyska dumaa. ilaahay wuu jecel yahay qoyska dhismaa. ilaahay wuu necab yahay qoyska dumaana. abbaayo ka caliso ha dalban furiin ha dalban. meel xunu ku geenaya. ninkaaga haddaa iska furtay nin kale guursanaysaa. dankuguma jirto nin kale inaad guursatid. waxaa ku wanaagsan kaaga fiican ninkaaga adoo ku sabirtid oo gurigaagaas haysatid. aniga ismahan ahaan ka fikir ahaan gabadhii ninkeeda inay iska furtaa damacda waxaan ugula talin lahaa abbaayo haddii asaga dulmka ka timaado waa nafsi baxaysaa. nin fiican aa helaysaa shaki kuma jiro. laakiin adiga ninkaagii ha dulmin. abbaayo ninkaaga ha dulmin. daryeelka qoyska qaybta dumarkaan ku soconaa hadda
anaga daryeelka qoyska qaybta dumarka ku soconaa marka si uu guriyeen u hagaago maxaana laga rabaa si guriyeen u hagaago maxaana laga rabaa in ay qofta dumar ay noqoto qof wanaagsan hooyo wanaagsan oo daacad ah oo gurkeeda daacad u ah ya oo ilaahay ka cabsanayso oo ninkeeda ifurdhiheen abaayo waxyaabaha guryaha dunyaanka aga sheekeynaya waa ka soo hadlay daryeelka qoyska dalada meesha ugu koreysa inay tahay wiilka hooyadiisa iyo aabihiisa iyo gabadha hooyadeed aabaheeda iyo walaalahooda qoyska oo isku tagay kor qoyskaas oo ka soo farcamay reerkan qoyskaas oo ka soo farcamay waa ninkii daladii waa meesheedii la heysanayo waaye oo ushi dheeraad ninka waa tiirkii isku hayo waay iyadana waa daladaas marka waxaa laga rabaa dadka korkaaga joogo ee kugu heerarsan ee hooyada aabaha walaalaha ehelkaaga asaga dadkiisa inta hadday isku dayayaan inay guriga u dumo inaadan jaanis u siinin fursad u siinin oo furiinka ka hortagtid gurigaaga inaad ku talageshid inuu ninku ku furay oo ku dadaashid maxaa yeelay furiinka waa dhibaato fara badan markii lagu furo abaayo dhibaa kugu dhacaayo ilmahaaga haddana nin aabahaasoo kale u noqonayo ma jirto waxaa kugu dhacayo waxaa la kulmaysaa dhib fara badan wax ka maarmi kartaa nin haa haddee duruuf kugu dhacdo wax si kaa noqdo laakiin anaga maanta waxaa ka hadloonaa daryeelka qoyska soomaaliyeed sidee qoys soomaaliyeed ku dhisnaa oo iswataan ka hadlaynaa abaayo qadarka ilaahay kama hadlayno ila fahmo mar walbo gabadha hadduu guurka ka halaawo qadar alla waay abaayo ninka ku nacay waa la nacaa aniga ma qaba nin ku naco ku dhibaateynayo la joog fikirkaas maba qababa ani abaayo ninku nacay oo ku rabin rab kuma dhahayo ani ninku inuu ku furo rabana i qab ma dhehaysid no way marna nin ha ka tuugin inuu ku qabo ma weliga alaa nin ha tuugin saas waay laakiin maxaa ka hadlaynaa wanaaga sidee qoys soomaaliyeed daryeelkiisi iyo inay is haystaan oo qoys adag ka soo baxaan ka hadlaynaa fikradaheedii iyo inaa si fiican idiin fahamsiiyo aan isku dayaaya kuma dhahayo abaayo ha lagu dulaysto ninka isku dulay kuma dhahayaani aniga ma ogolo in la dulaysto si adiga kugu ogolaana saas waa abaayo marka waxaan kuu sheegayaa gacalisoy aan ku leeyahay hadduu ilaah guuroon yahay abaayo adiga oo lagu dulmini adoo dulmiga ogolaanaynin abaayo aqliga ilaahay ku siiyey gabadha qoyskeeda cusub ee hadda bilaabatay iyo gabadha hore usoo qabtayba qoyska dhisnaa aan ku talagalayaa siduu kusii dhismo maxaa yeelay guryaha dumaya wuu nagu batay abaayo ninkaaga ha dhihin ifur abaayo naclada kugu dhacaysaa la dhahay maanta se adduunyada aan joognaa idinkaga sheekeynaya ani dad badanaa wareystay naaga badanaa wareystay ninka ma dhahdin ifur naag caddaan waa weydiiyey carabaan weydiiyey afrikaan waa weydiiyey ninka hadday isdagaalaan ifur soomaali le waayo aba walaalayaala waxaas waa hiddo aan ka dhaxalnay ayeeyaashiin aan ka dhaxalnay fudeed ayeeyaashiin aan ka dhaxalna waayo ilaa hadduu nagu socdaayo walaalayaalow ilaahay uga cabsano guurka waxa wanaagsan aan isfarno waxa xunna aan iska reebno furiinka ha laga hortago guryaha dumaaya ha laga hortago yaa lagu dadaalin guryo inay dumaan yaa lagu dadaalin ilaahay ma jeclo ilaahay wuxuu jecel yahay qoys la sameeyaa qoys cusub oo islaami oo wanaagsan in la abuuraa uu ilaahay jecel yahay ilaahay kaasuu jecel wuxuu ilaahay jecel yahay maa jeclaanayna oo jannii darajo sare lagu aarayo mise waxa fasahaadka guryaha la duduminayo dadka masaakiimiinta la kala geynayo may abaayo marka waxaan kugula talinaa walaashaa ismahaan qaliib qaali qalbi uroon aan ku leeyahay abaayo oo ku leh walaashaa ismahaan aan ahay oo ku jecel hawadan kusoo marinaya gabadha soomaaliyeed abaayo qoyskaa hadda ku jirta ninkaaga kula joogo iska waxaaga macbilayso ku farax iimaanka ku qab ilaahay uga cabso ilaahay barako weydiiso salaada tuko ilaahay bari waxaa dhahdaa ilaahay oo intaa isiisi ii barakee iimaan la-aanta kaaga digayaa waxaan kaaga digayaa waxyaabaha dadka kale haystaan la fiiriyo waxa dadka kale ay haystaan oo la fiiriyaan kaaga digayaa abaayo waxaan kaaga digayaa abaayo wax kastoo xun abaayo waxaan ku leeyahay ku talagal qoyskaaga inuu jiro abaayo ku talagal qoyskaaga inuu jiro iyo dumin qoyskaaga abaayo furiinka wax xun waa maadaama uu ilaahay jeclaan anigu waan kaagala dardaarmaya waxaan ku leeyahay abaayo furiin ha dalban furiin gabar asta oo soomaali ah ha ogaata adduunyada dumar joogaan oo dumarka soomaalida lamid ah ma jiro anaga unbaa furiin dalbanaa ninki waxaa micno lahayn inta lasku qabsadaa ifur meel laga keena mala yaqaano hidda ayaan u helnay dhaxal ayuu nagu noqday dhaqanki ayuu noqday waa inaan cirib tirnaa sida sahalka qoyska islaamka ee soomaaliyeed naag inay nin inta ku dhigtaa ifur dhahda u qaldami karaa ninkaaga abaayo
kuma dhahay dulliga ogoloo oo yaa lagu dhibaatay laakiin waxa ku leeyahay adoo iskala hadlaysi furiinka meesha ka saar furiin iyo meesha ku jirin ku leeyahay furiinka in laga saaraa meesha oo dhahdid okay aniga waxa ahayaa leedahay walaasha qaali oo nolosha la qaadanaysa walaalo sidan makaa mutaysanahay sidan makaa mutaysanahay leedahay igada waxaas leedahay hala soo boodin furiinka asagoo xanaaqsan oo dhibaataysi si hadii kale markii si sahal ee furiinki maanta dhan uu ku dhaco qoyska xarkas waxa micno leena isku dagaalan isku fureen walaalayaal waxa micno leena isku furaysiin iska daaya waxyaabo waaweyn ee dadku ku wada joogaan waxyaabo waaweyn ee dadku wada joogaan idinku wax yar isku furtaan Soomaaliya ilaahay oga cabsada maxay horta hadaa mar walba ilaahay ka fikirtid qoyskan wanaagiis iyo horumartiisa inuu ilaahay jecel yahay oo dadaashid oo ilaahayga caabudid oo gurigaaga daryeeshid oo naag baari oo raaliye noqoto raaliyadii weyneed oo qatarteed aan kama hadlaayay waxa ani ahayn horta aan idiima sheegahay been waxyaabo qaarkood aan wada sameeyna waa la gartay laakiin raaliyada ee subhanallah aniga way ila yartaa adduunka hadee jirtane Allah noo soo ziyaadiyo Allah noo soo badiyo laakiin waxyaabaha oo waxaan ka hadlaynaa oo waajibaadkan ka hadlaynaa qofta dumarka inay ninkeeda ifur dhahin hadhihin ninkaaga ifur ha ku dhihin ninkaaga ifur wixii dhacay waqti si aamus ka fikir waqti qaado waqti markaa qaadato oo ka fikirto ka fiirsatay tartiib oo aragtid dhibka jiro inuu dhib laga soo bedelayo ahayn oo ninka soo bedela oo meel gaaray dadka ehelkaaga u sheego dhibkaana jiro kama bixi kara anigu kuma dhahay hal guduleysto kuma dhahay waxaan diidayaa maalin walba si fud waa la isguursada fudeed waa la isguursada fudeed si fudud la isku guursanaa si fududna waa lagu kala tagaa si fudud la isku guursanaa si fudud lagu kala tagaa sax ma aha walaalayaal ilaahay aan ka cabsano aan xaq isku dardaarano guryaha muslimiinta oo Soomaalida furiinkooda yaa laga qayb qaadan dadka inay isla joogaan guryahooda isdaryeelaan inaan ka shaqeyno waa marka barnaamijkeena daryeelka qoyska wuxuu ku socdaa dumarka qaybtan in ay ninka ragga ee odayeeda ama ninkeeda ama zawjkeeda ay ka dalban furiin ما فهمتين فرين هذا البن أبايو فرين كلا البن أي ما في عنا قرياسي سهل كبابا ضد وذا جوجي كري سهل كفرين ولا لي هلو نمك رجوا أنا كانوا حايدين ليها جارها رجوا على سؤال لنا دمر كسي سهل كفرينا دمر كان جايب الدلبن با هذا البن أبايو فرين هذا البن فرين هذا البن كعر إنه فرديد مرة بيد هذا ديار مي إن كان يفرن دارين كان هلا غفير صدقني naag fariidata guriga badbaadinaysa dantaada raacanaysa si ay dadka darajo dheerta naag sasmeeso waa naag karti leh oo Soomaaliyeed ma naag oo ciyaar naag tasminis naag furiinka diiday wax lagu faanay hay awoodeedii aqligeeda ku shaqaysatay intii hadda ninka iska furto wax yar kadib ninka la irid ku soo istaaga 10 irid ku soo istaaga waa ku rabaa dhahaan telegeena xad ninkaaga iskala joog ninkaaga barkeesa asaga ilaahay ku calfay asaga barkeesa ilaahay uga shukri kadib uu ku barkoobaya laakiin iimaan la'aan hebelaay ninkan walaalayaal waxa nusqaanta keenay waxaas waa dadka kala afiirinayna iska deynaa walaalayaal nusqaanta waxaas keenay ma iska deynaa nusqaanta waxaas keenay iska daaya ilaahay oo ka cabsada aan ku dadaalno dhisida qoyska Soomaaliyeed aan ku dadaalno dhisida daryeelka qoyska Soomaaliyeed dumista qoyska Soomaaliyeed aan ka harno waxaan idin dardaarmayaa qeer waxaan idin rajeynayaa guul adooni liibaan aqro ballanteenu waa wanaag iyo xumaanta oo la reebaa iyo walaashiin ismahan Khaliif Cali ismahan qalbi oo idin leh kulanti kale subscribe like and share qeer ku ala faafiya assalaamu calaykum wa rahmatullahi